madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika Africom General Carter Ham waxaana kulankan generaalka Mareykanka ah ku wehliyay safiirka Mareykanka u fadhiya dalkan Jabuuti Geta Bazi iyo taliyaha xarada ciidanka Mareykanka ay ku leeyihiin dalkan Jabuuti Major General Ralph Baker waxaana dhinaca Jabuuti kulankan madaxweynaha ku wehliyay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Maxamuud Cali Yuusuf iyo madaxa amniga qaranka ee dalkan Jabuuti Xasan Siciid Khayre kulankan ayaa looga hadlay xiriirka iskaashi ee labada dal gaar ahaan la dagaalanka burcadbadeeda iyo argagixisada wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo markii kulanku soo dhamaaday kadib la hadlay saxaafadda ayaa ka sheekeeyay qodobadii ugu muhiimsanaa ee kulanka looga hadlay isagoo sheegay in xiriirka iskaashiga nabadgelyada ee ka dhaxeeya labada dal uu yahay mid toban jirsaday kulankanina oo qayb ka yahay kulamo xiriir ah oo dhinacan siyaasadda iyo ammaanka ah oo madaxda labada dal ay yeesheen علاقات والتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وجيبوتي في مجال مكافحة القرصنة ومكافحة الإرهاب الدولي. Jabuuti iyo Mareykanka waxaa ka dhaxeeya iskaashi la dagaalanka argagixisada caalamiga ah iyo burcadbadeeda waana iskaashi toban jirsaday waxyaabihii kulankan looga hadlo waxaa ka mid ahaa xiriir ku saabsan iskaashiga muqaabaraadka iyo kan militariga sidaad la socotiin dowladda Mareykanku waxay xarun militari ku leedahay Jabuuti halkaasna waxaa ka socda howlo horumarin ah sida ballaarinta aeroboorka فيه تطورات عديدة تجري فيه منها توسيع مهبط المطار waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti uu sheegay in iskaashiga ka dhaxeeya ciidamada Jabuuti iyo kuwa Mareykanka uu yahay mid aad u wanaagsan oo na sii socon doono isagoo sidoo kalena sheegay inay ka wada hadleen ciidamada ay dawladda Jabuuti dhawaan u dirtay Soomaaliya oo qaybtii ugu horeysay la geeyay magaalada Beledweyne qaybaha kalena dhawaan la geyn doono Maxamuud Cali Yuusuf wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa sheegay in howlgallada ciidamadaas ay ugu dirayaan Soomaaliya oo qayb ka yahay sugidda nabadgelyada gobolka أود أيضا أن أنوه بأن جمهورية جيبوتي ستنشر قوات كتيبة كاملة في الصومال. dowladda Jabuuti ciidamo ayay u dirtay Soomaaliya ciidamadaas waxay u baahan yihiin taageero iyo xoojinta awoodooda qaybtii hore ee ciidankaas waxay tageen magaalada Beledweyne inta hartayna dhawaan ayaan diri doonaa waxaana taageeradaas ka doonaynaa dowladda Mareykanka iyo dowladaha kale ee aan iskaashiga leenahay waxa uu iskaashigani noqon doonaa mid lagu sugayo nabadgelyada gobolka lagulana dagaalamayo burcadbadeeda عزيز الاستقرار في هذه المنطقة وأيضا في إيجاد نوع من الفعالية في مكافحة القرصنة والإرهاب الدولي. أحمد عبد الكريم محمد هون كيبل تي في جيبوتي.